السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة مركز كوباد يا مركز لباد يا مركز صدحات يا مركز شنات يا مركز اللي حد تبقالات بجنا لكن مدن حسين ومدن حسين وحين لها الله أوله صود دوادة إني قاله والسجي أو مدن حسين لا يراهدون وحين لها الله ما لا سعتان مركز إن وركي هربا عكارة صودف كي هوري صودف كي كلا كدر ما أنت بحاس عض ماشى وياب أو ميرة ويابنا هنو ياب كتجي hadalkiina hadal ka tegey socodkiina socod ka tegey wax walba ka tegey kala tegey isku tegey laga yaab waxa maanta idin hor fadhiya kulli in badan waa isleeyihiin maslax midaaya iyo sharmaad dad walaalo oo saaxiibo ah oo meelooda jooga laakiin mar walba maslax wuxuu ka soo hadlaayay deeq darajo ninka la dhaho waa kan walaalkay Roma waa nin saaxiibkay mar walba garab noo ah oo darteen dhibaato iyo wax walba maray ani waxa aan shaashadaha ugu daba jiraan idin sheegaya horta deeqow walaal bal adiga hadalkii noo furo waxna aad ma santahay niyow hadalka Soomaalida dhan waxa dhan way u yahay xukumi fan xaqiiqda hadii la hadlo hadal badana ma fiicno sax xaqiiqda dhabta isee wax walba u jiraan way arkeen wayna la socdaan oo sax infaanti waad baqasheen maslax mideeye inuu hadlayo maanta deeq darajo oo meesha wala fadhiya inay hadlayaan maxay ka hadlayaan wada waxa meesha ay ka hadlayaan waa maxay waxay ka hadlayaan wixii uu la ooyayay Sharma Boy daratoole shalay toole u jeedaa Sharma Boy la ooyayay dhibtii lagu hayay dhibaatadii lagu hayay mushkiladii meesha taagneed calaacalkii dhibaatadii iyo murugadii ka ooyisay nin raga ayay maanta ka hadlayaan way aamusi kir leeyihiin waxay ku leeyihiin muxuu maslax wuxuu leeyahay maxaa la leeyahay maslax mideeye muxuu ad leeyahay muxuu daaha dabiisa u fadhiyaa muxuu kamarada u soo fariisan leeyahay laakiin maanta waan soo fariistuu leeyahay waxaan cadaynayaa waxyaalaha waxa meesha jira ayaan cadaynaya waxaas isaga meesha waxa fadhiya isaga iyo deeq darajo bal deeq darajo han dhageysana hadda inuu san ninkaas hadin buugiisa in xiro lagu kalifay oo YouTube ka ata haduu xiraayo ama ba awood u haysto uu jabsan karo ata haduu jabsada ata uu dhahay go'aan uu ka gaaray inuu san hoos keenin sida hadda anaga loo soo kalifay waayo anaga haddan ma jecelin dad waxa rabnaa aan hayna horumar gaarno oo fankeena aan ku fiicanahay haddaba walaalkay maxaa kalifa waxa kalifa Sharmaake inuu ninkaas horgeeyo uu ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku fariya YouTube ka ata qaado فيريا هذا يوتيوب مهم وإيه تتابعوا شو وحول حتى يوتيوب كقدر نيك هؤلاء في أماني قلي نيكاس أمان قلي نقدر يراعي هاي همية ليكسر فعنا هنا يربي وحول لي يا مركا حقيقة نبتان هذا ماشي وحنا قاعد يسنينا Sharma Boy markii uu soo galay leefka oo lahaa waxa tahay maxaan ku raadayay boqorka baraha bulshada waan ka dambeeyaa waad iga badisay waan ka haray markuu lahaa wuxuu sida daraadi u sameynayay deeq darajo oo la dilayay markaas oo baaskoolad lagu hayay oo la dilayay daraadiis ayuu soo sameynay deeq darajo oo la dilay waa kuwan maanta maslax mideeye iyo deeq darajo isla fadhiya oo sheekadii xalay toole oo Sharma Boy ka ooyisiisay nin rag oo dhan u adkeysan waayay maanta iyaguna cadaynaya iyagna waxay leeyihiin waxana soo fariisay meesha dib daraadeed ayaana soo fariisay wasa daraadeed maliga soo qoray sax wali soo wacay waxa uu dhahay halo ninkaas dacwo ka ah sidoo uu dhaqso badan waxa rabaa ina kala noqoto dacwooyinka akoontigiisa ka xirtayna u soo celisay ali uu dhahay ani waxa ku dhahay anyway ninkaasi meel fog u jira ana xaq u leh wadanka joogo ma fahantay asaana wax walba Soomaalida qofkii wadada maray awgeedisay yaa qaldan oo ku sheegayaan everything Facebook iyo wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dimacsan yahay ninkaasi hanoo hiilin una qaldan yahay su'aasha kale uu igu dhahay ninkaas kari waxay ahayd adima aniga isu dacwada waa may so ninkaan ka soo reeyay dacwadiisa marka ninkaan xaliyo aateeda xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo hadii batan la xalina caadi waa ninkaan hada okay waay ku dhahay anyway maalintaas waxay ahayd 6 saac 7 saac meelahaas ahayd markay soo wacay waxa hadana la yimaado face to face xirig ay gaarayso waqtiga markuu ahaayeen hal saac weynimo la galay waa la yimaaday like qof walba meesha joogo inuu og yahay markii la yimaado aniga wax oo reeli lahaa waxa waaye saddex nin oo askari ay yimaado oo hal nin oo labada yaqaan oo horkacaayo mi fahanti or like that operation u socdo kale you know that anyway dadkaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo hawlo kale waa maahan report case iyo arimaas iyo dada ku xilsaaran oo loo gudbiya mar walba ma fahanti aniga wax ma dhicin wax qalad ma sameeynin anyway aniga waali mobilka li qaatay wixii oo dhan markii li qaato anu awood leh isticmaalaya waxa la sameeyay in aniga wato gaari li qaato dadku dhan is dhaxgalay Sharmaake waxa lagu dhahay saaxiibka hadii aragtay badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo
وكا ايغا دبا maxaa la yiri sharma boy baa la soo wacay ninkan askar baa qaadatay askar baa loo soo diray rag baa loo soo diray oo burcada oo maxaan ku radaa ninkan doonaya inay khaarijiyaan oo dilaan sidaa daraadeed waxaa la yiri haddii aad ninkan noloshiisa rabto oo saaxiibka oo deeq darajo noloshiisa inuu noolaado dad rabto badbaadi oo hadal baa la yiri haddii kale ma badbaadi sababta lagu badbaadinaya maxay oo lagu badbaadinayana waa maxay oo badbaadi lagu yiri isaga inoo sheegi doona deeq darajo wixii laga yiri gudbi mi fahanti anyway uu gudbi accountiga xataa qaado u dhahay waa haystaa mi fahanti u dhahay waa ba haystaa accountiga xataa mi fahanti wax walba uu sameeyahay isla hada video isoo du video u duway mi fahanti markaas inuu youtube ninkii soo fadhiisto wuxuu dhahay 24 saac inuu raal gareyn soo duway video isla haweenkaas loo duway maalinta ku xigtana accident uu galay video hada aragteen haween waa mi fahanti waxaana ku qasbay videogaasi anigoo la haystay oo wallahi billahi talaahi markii sharmaaki videogaas iyo codadkaasi uu ninkan u sameeyay wuxuu rabay aan soo daayay 3 good hours aliu haystay gaari dhexdiisa mi fahanti oo meel ka baxsan station ama meel waan fahnay imika sheekada waan fahnay imika wuxuu yiri maxaan ku raadaya waxaa laygu haystay meel ayaa laygu haystay buu yiri isku wadagii hadalka in hadal ku daalin sheekadan ayaa ka dambeeyay daahir cali sow ayaa ka dambeeyay daahir cali sow ayaa rag u adeegsaday daahir cali sow wuxuu yiri haddii aad accountiga soo dhiibi weydo maxaan ku raadaya gmailkan ama si gmailka haddaad soo dhiibi weydo youtube-kaad ku isticmaashid iyo mudabaaskiisa ama passwordkiisa haddaad soo dhiibi weydo maxaan ku radaa ninka waan dilaynaa waan khaarijinaynaa sidaa daraaddeed ayuu maxaan ku radaa sharma boy 24 saac gudahood raaligelin haddaad u bixin weyda wuxuu bixiyey passwordkii buu bixiyey gmailkii sidoo daahir cali sow kula wareegay kadib waxaa lagu xukumay ninka waan dilaynaa 24 saac gudahood haddaad soo dhiibi weydo ama keeni weydo ama odhan weydo raaligelin soo sheeg weydo sidii daraaddeed maadaama ninka sharma boy walaalkiisii deeq darajo la dilaayo isagana waxaa ku kalifay inuu raaligelin bixiyo waa sida ay noo sheegayaan maslax iyo deeq darajo hadda ay noo sheegayaan dambiyada galo loo haysta ma ahan meel kale gooniya lagu haysto mi fahanti anigoo shaati dowladda isticmaala anyway xaqiiqada dhabta waxay tahay aniga like maanta haddii arrimo qabiil iyo orod iyo ku jiri lahaay muqdisho joogi lahaay reerkeyga walaalahayga iyo dhexgal lahaay laakiin hadda arrin qabiil ma taagna meesha maanta garwaa joogaa like aniga oo halkan imaadaa wallahi billahi talaahi waxaa la isku dayay mi fahanti asagoo dadka laga dhaadhicinayo programka oo sharma accountiga si qabiila lagu bixiyay waxa watay ragga wada ogtihiin mi fahanti waxaan aniga miiraway in dhibaateeyo dhowna markii la dhibaateeyay in la dhaho sharma iyo tolkiisa iyo reerkiisa dileen laakiin arrintaas ma aan arrin qabiil madaxda isku geliyo waa la difaacay waa soo jeedna sax xawadka la garaacay mi fahanti idan sheekadii maxaa loo rogay sheeko qabiil ayaa loo rogay uu nafaansiina waa kay noo sheegayaa maxaan ku raadaaye deeq darajo wa Soomaaliya goormay feerisan ka baxaysaa war xanuunkan goormuu ka baxayaa war goormuu dadku caadi noqonayaa war goormuu qalbigu nadiif noqonayaa war goormay Soomaaliya hagaagaysaa war goorma la kala saari doonaa qabiilka iyo qaranka war goorma reer dadnimada la kala saari doonaa war goorma xadaari la noqon doonaa war goorma diinta la fahmi doonaa war goorma dadku dad caqiide la noqon doonaa war goormu dadku dad wanaagsan noqon doonaa waan garan laanay wali hadaas waa taan sugayno en ka yaabanahay waa maanta taas weeyaan waayahay la socod wanaagsan hadda maanta like wallahi billahi talaahi hal mar ya like walaal iyo tol iyo qof kasto ila soo xiriir aniga mar walba xadaay out akatiin programkan program dhalinyaro u taalo waaye program youtubers iyo arrimahaasi waaye mi fahanti so this like physical bullying like wax walba adiga oo mailing ah oo wax walba oo xun oo qof lagu sameeyo maanta ceel iyo xumaan laga qaadaa lagu sameeyay mi fahanti so markii adiga dadkaada iyo walaalaha iyo baalku ku kacayaan waxa waaye markii aad la dagaalaysid shakhsi laakiin qof maanta oo dhan qabiil iyo wax xun dawada ku wato oo waxba ka jirin xaqiiqda ku sheegay like dadku sheeganayo iyo arrimahaasi dhan maba ku jiraan right now hadda wuxuu madaxa ama xumaan u soo jeeday baayo farxiyo mi fahanti oo Nairobi imaatay oo dambi inuu sii geliyo rabaa like inuu support ka helo dhankeeda ama ba like si loo difaac maanta hadda xumaantii uu weyneed uu nagu sameeyay aniga ma jecleen inaan soo bandhigo mana rabin aan ka dhaxgal xogahay horta waa idin salaamay horta hadda isweydiinaysiin maslax mideeye sababta walaal amsan mar walba oo macnaheedu
deeq darajo uu caddeeyey wax meesha jira uu sheegayna wixii maslax na uu sheegay inkastoo maslax imika hadalkiisa sii wado sharma boy wuxuu ku ooyayay inay waxaa taa uu sheegay laakiin maanta anigu waxaan leeyahay waa raggii aaway kabtan ayuub lalahaa ninkii kabtan ayuub lalahaa aaway shiino cule aaway raggii maxay u hadli laayeen maalintii dhaweed ninkii maalintii hore ninkii ooyin way hadlayeen laakiin maanta oo sharma boy ooyey maxay u hadli laayeen raggii aaway raggii maalintii hore diboorinaya maxay u hadli laayeen war soomaalidii aaway war dadka maxaa kala dhex geli laadin war ninka weyn maxay odhan laadin ciyaalka ka bax oo iska daa oo dhallinyaradan soo koraysa ee waqtigooga qaadanaysa kor uga bax maxaa oran weydeen xaggee maxaa isku daawanaysaan mise noloshaabaad caynka u fahansantihiinoo nolosha dhan baad caynka u fahansantihiin aw dadnimadu war ma inigiina soomaaliya iyo ismiidhaya iyo isku gubanaya maxaa dhacay bal ha dhegaysano maslax mideeye uga hadli arrinkaa maxay tahay horta aniga ma aaminsanin aniga waxaan mar walba la taaganaya walaalkay oo garabkiisa ahay dhibaatana ku jiray wax walbana way dhaceen aniga shil markaan Djibouti ka imaanayay ani Soomaali run adin sheegaya Soomaaliya markaan imaanayay aniga sharma mu imaanin aniga ku markaan wadanka imaanayay ani xamara imaaday reer xamara u imaaday jacayl iyo walaalnimo iyo kalgacayl uga imaaday waxa waaye shalay marka sharma waday ee Djibouti ay geeyay lama dhahayn afaara qabiil ay ka wadaan laakiin waa lagu faraxsanaa horumarkeena marka laakiin maanta Puntland aan imaanay wax walba aan sameynay afaara qabiil iyo xasaab أنا حتى نكني وحوي نكن مركو ده تجوتيان ما تهاي محي أتهاي أدي أرنك هذا المرء والوجود جوابه يا قعنا لقيت جوابه يا كوا على قاسينا يا أنا جمك هالدي ما حوجه هالواي ما تشعلين أنا قدينا صحيح كجرب يا وإلا ماش مصلحة وهنجوا حوري محاكر جيبوتيان حنا تهاي والوجود جواب وروحها محاكر والوجود جواب يا جوابته ملفوف بتاع كوا على قاسينا والوجود لي أبكر وروحها واحد اللي دي ما جرتي maxaan ku raadaay maslax wadanku jooga wadan Soomaaliyeed waa wadankiisi Djibouti waa wadankiisi hooyo Soomaalina Soomaaliba gasho waa wadankiisi ma garatay marka nin la dilaya ma jirto laakiin waxa wala isaga cabsinayaan ma garatay marka sida daraadeed walaalahayo dib isku noqda haddaad tihiin ummad Soomaaliyeed oo ismayra oo ka noqda waxyaalaha maxaan ku raadaay meesha la adeegsanayo oo labadiina waa buuqa ku jirno ani mar walba waxa ahaa kamar waxa arrimaha xalnay laakiin waa faham waay ani waxa ilaa hadda ka gubanaya sax macna taqaan walaalkay sharmaake oo dhibkiisa aniga aan u dul qaadan kar lahay oo xabsiga iga jiro oo macnaheedu meel aan ranadi aniga aan maalin walba arki lahay oo wax walba meel walba u maraayo oo dhibaatadiisa aniga dhibkayga tahay xataa waxba cuni kari waayay intuu soo fadhiistay oo faanayo u dhahay maga ka bixiyay saaxiib ani ciila guriga ugu dhaxway ma faan waxaasoo kalena wax wada dul qaadanay ma faan haddana iyadoo saas tahayba hadduu ninka ragga nin ragga ma ka bixiyo xataa waxa weeyday wax la isku sheegta maaha haddii rag way isku dhacaan way kala baxaan laakiin in la kala hadho anigu dumarnimo aan arkaa aniga meeshaan ka imaaday dhaqan ma male waxaasoo kale in waxaasoo kale afaaraha la galan faan haddana waxa deeq ugu sheegaya walaal macaan dadka waxay duran hadhahan waxba yaan hadalku idigu daalin waxba yaan hadal idigu daalin hadal iyo dhamaantiin wad aragteen hawsha halka ay taagan tahay waanad la socotaan maxaan ku raahday waxaan nii rajaynayaa maxaan ku raahday inaad fahantiin oo hawsha halkaas ay ku eg tahay oo fahantiin baan niga yaan rajaynayaa maxaan ku raahday hawsha way dhan tahay laakiin waxaan niga rajaynayaa inaad maxaan ku raahday kala gaadhaan raggaasi oo kala qabataan waan salaamayaa Soomaaliya meel kasta oo joogtiinba فيديوغا إن حكت كده ونسينا وجنال كمدن حسين لايك يا سبسكرايب يا شير تبوا حقينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.